Wiilkii wuxuu u imaaday maamadii garoobta ahayd. Gabadheedu waxaa xaafadda dhan wixii nin u diiday. Sidee ku keentay in 10 malyan ii keento? Adina baarakallah. Gabadheeda iyo wiilkaagana way billaah. 10 malyan oo wiilkii oo maqan. Hooyada ama sheertir u dhig. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Guys, waa walaalkiin Axmed Kaaf AK. Channelka waa Cabdilmajiid Kiina Channel. Guys, kusoo dhawaada muuqaal cusub, sheeko oo macquul ah, oo funny ah, oo shaqtar leh, oo dabcan adiga aad ka heli fiirsanaysa. Dabcan waxaan idin codsanaa sheekada bilowga ilaa dhamaadka inaad la socotiin fiidiyoga. Intaana muuqaalka sahal ah gudaha u gelin, fadlan haddaad channelka cusub tahay, subscribe leh, like leh, comment leh, dabcan ha iloobin share. Intaa fiidiyoga gudaha u gelin, waxaan idin codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad nala socotiin fiidiyoga bilowga ilaa dhamaadka inaad nala daawatiin. Dabcan waana ka heli doontiin fiidiyogan. Waa fiidiyo aad iyo aad u qurux badan. dabcan u soo diyaarin dartiin. Guys, maanta halkan waxaa idinku hayaa sheeko funny ah oo xiiso leh. dabcan waa ka heli doontiin si aad rajeynayo. Marka sheekadu waxay ku saabsan tahay sida tan. Haddaan gudaha usii galno mawduucana ama sheekadana maantay, dabcan sheekadu waxay ku saabsan tahay maamo oo garoob ah oo haysto gabadh. Marka wiil gabadha jeclaaday. dabcan markuu jeclaaday gabadhii wuu u sheegay. marka waxay dhahay anaa haddaa ii baahan tahay hooyaday u imaaw. hooyaday macnaha arrimahayga ama guurkay iyo mustaqbalkay go'aan gaarayso. marka sidaas darteed wiilkii wuxuu u imaaday maamadii garoobta ahayd. dabcan maamadii markuu u imaaday oo wuxuu dhahay maama saanaa jirto, gabadhaada u baahanahay. dabcan gabadhaadana aad iyo aad u jeclahay. marka maamadii waxay dhahday ani haddaa gabadheeda u baahan tahay ama gabadheeda in kaa soo gashay, dabcan waa wax iska yara weyn maahan. gabadheeda waxaa siisanaa ninkii oo dabcan meherkeeda sidaa u rabo u bixinayo ama inta qiimaha aan rabo ani oo dhiibayo. markuu dhahay wiilkii saas hadaa tahay dhib ma laho dhahay meherka iyo sheeg maama, gabadhaada wax walbo waa u samayn karaa. marka maamadii waxay dhahday wiilka wuxuu iska filinayay lacag yar adiga oo iska macquul ah. markaasaa maamadii waxay dhahday gabadheeda ninkii bixinayo lacag 50 malyan ah gabadheeda siinaya dhahday. marka wiilkii inuu yaabay uu jahwareeray uu dhahay maama gabadhaada ani waa jeclahay yaa, gabadhaadana waa u baahanahay, mana ka tegi kaliya 50 malyan saa'id waaye. ay dhahday haddaa haysato gabadheeda waa ku siinaa, haddaa haysana buuqi u dhaaf. markaasuu wiilkii ayuu dhahay go'aan uu gaaray wuu baxay. wiilkii wax badan uu soo raadiyay lacagtii uu soo raadiyay waqti badan muddo badan ay ku qaadatay. wiilkii soo helay lacag ku dhawaad 30 malyan uu soo helay meeshii laga raba awal 50 malyan. marka wiilkii wuu fikiray. marka wuxuu dhahay maamadii 50 malyan warna ka keenin dheesi macquul ma u dhamaa anfacayso 30 malyan. marka maxaa xal oo samaysaa? meel kale wax u raadsan ma lahayn. marka aabihiis uu aaday wiilkii uu ula tagay lacagta 30 malyan ahayd. markaasuu dhahay aabbo saasaa jirto gabadhaa doontay intaasaa lidhahay lacagtana iguma filno dhahay. intii lidhahay intaana hayaa 30 malyan hayaa aabbo bal qaad lacagtan adaa nin iyo weyn oo mas-uul ah bal wax ku dar. duqii wuxuu dhahay aniga waxna ma haye laakiin ilaahayna qabnaay waa u tagaynaa dhahay noogey adiga cadda. marka sheeko cajiib inay tahay waxaan ku ogaanaya. marka aabihii iyo wiilkii israacayna ciddii markii aadayna maamadii waxay dhahday gurigii tageen. gurigi markay tageen waa lasoo dhaweeyey oo wuxuu dhahay odayga wuxuu dhahay dabcan gabadhiina soo doonanay. marka 10 malyan waa gabadha meherkeeda oo iga qabso. marka maamadii ma xanaaqi karto inay xanaaqday waxay dhahday gabadheedu waxaa xaafadda dhan wixii nin u diiday oo qiimaheeda 50 malyan oo ahay oo ka yaran macnaha xataa weligii la damcin. sidee ku keentay in 10 malyan ii keento? odaygaas oo wuxuu dhahay ha iga dhex gelin u dhahay
sheekada ay dhex gelin 10 malyan qabso waa adiga meherkaaga marka maamadu way yaabtay meherka yaa waay camal meherka aniga adiga way wada marka odayay markaasay maamadu way faraxday ee dhahday markay faraxdo ee dhahday luqa xajim cala la dhihi jiray marka waxay dhahday marka xajim calo waxba nagama halaawayaan infant ani adina barakallahu gabadheedii iyo wiilkaagana way wiilay marka sheekadii intaasay ku dub dhacday macnaha halkaas sheekadii ku dhacday markay dhahday ani adina barakallahu gabadheedii iyo wiilkaagana way wiilay sheekadii xajaasay khalaas u noqotay marka dadkii deriska ama jiiraankii oo naagta deris ee la dhaheen naagta waxaa la dhihi jiray isniino markaasay dhahday war isniino xal aalaay yaa gabadhii oo intaasoo oo wiil xaafad degan ama anaga oo xaq u leeyahay intaas ku dheeynay dhehaysa adiga toban isku dhaaf 40 malyan masiinay amaan 10 malyan ku baxsanaysay wax u jiraan camal markaas waxay dhahday badeecada jumlada iyo tafaariiqda kala duwan marka ani iyo gabadheedina guurkeena jumlo tafaariiq baahan sida awgeed discount u sameeyay marka sidaas la mid haddana odaygii oo wiilka dhalay wiilkii asaga oo dhalay wuxuu dhahay aabow 10 malyan gabadha meherkeedu noqday 10 malyan maamadii noqday 10 kale maxaa anima u bilowda dad camal anaga waxaan soo raadiyay markaas oday wuxuu dhahay 10 malyan oo wiilkii oo maqan hooyada ama sartir u dhigay wiilka aad u dhaxmar markii daawad yar hadii sheekada idin xiiso gelisay ama akeeshan fadlan janalka abduljiidkiina janal like subscribe like dheh dabcan fiidiyoda daafashay wixii oo macnaha sheekada oo kaga soo kordhay ama ka fahantana dabcan commentiga ugu soo xariiq dabcan hadaa sheekooyin wax idin xiiso geliyay dabcan waa idin soo gudbi doonaa haddii adinka diyaar u tihiin taasna waxaa ku ogaa karnaa qaybta commentiga so guys waxaa idin leenahay peace and love